si aad xogtaada dib ugu hesho. Tani ma ahayn hal isbitaal oo keliya, waxay ahayd weerar internet oo ku fiday dalal badan oo adduunka ah. Shirkado ayaa istaagay, hay-ado caalami ah ayaa hakeeyey waxoodii maalinlaha, isbitaalla ayaa galay xaalad adag. Su-aashu waxay tahay, yaa ka dambeeyey? Sidee ayay u dhacday dhacdadan markii la eego dhacdada caalamka ee hakarka? Waa tahay daawadayaal, haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta bartaanan ku midownay. Haddii aad hore noola joogtay, waa ku mahadsan tahay daawashadaada. waxaan fiidiyowan aan maanta ku dhex mari doonaa dhacdadii cajiibka ahayd ee ka dhacday gudaha caalamka dhijitaalka internetka bilowgii 2015 ilaa 17. xilligaas Windowska wuxuu ahaa mid ka mid ah nidaamyada ugu badan ee kombiyuutarada adduunka loogu isticmaalo. Shirkado badan ayaa jaamacado iyo hay-adaha dowladda iyo ganacsiyada intooda ugu badan kuwaasoo ku tiirsanay nidaamka loo yaqaano Windowska, laakiin qaar waxay ahaayeen kuwo casriyeysan, qaar kaleetona waxay isticmaalayeen software tuuga taas oo badinkood aan lagu samaynin update sida aan ku arki doonno xogaa. Halkaas ayay dhibaatada ka bilaabatay, waxaana jiray nuglaasho ku jiro adeegga Windowska ee loo yaqaano SMB. wuxuu ahaa caabiyaha kombiyuutaraadka in ay xogta adeegsadaan, halka kuwa kalena ay kombiyuutaraadka caalamka ama shabakadda ay ku jireen nuglaashaha. waxaa dhacday in ay dhacdo dhacdadii ahayd Runway Grey. wuxuu ahaa ransomware ama waa malware ama waa xog awood badan oo virus wadato, taas oo xayiri karto kumanaan kombiyuutaraad ku yaala dalal badan. ay sameeyeen shaqaalaha shirkadda waxayna arkeen fayrasyadii kuwaas oo xanibay in ka badan kombiyuutaraadkooda maalinlaha. qaar ka mid ah hay-adahaas waxay ogaadeen in nidaamyadoodii gudaha ay dhibaato galeen. si la mid ah waxaa xayirmay isbitaaladii kuwaas oo diiwaangelin jiray bukaanada, halka badankood ay ku samayn jireen update ama cusboonaysiin. gelgelishadu waxay rabtaa in ay hubiso ballanqaad kombiyuutarka ma shaqaynayo la'aanta bini'aadan. shaqaale kale wuxuu u baahan yahay xogta muhiimka. xogta lama heli karo marka nidaamyada dijitaalka ay istaagaan. waxay ku qasbanaayeen in ay isticmaalaan habka gacanta ah, kuwaas oo loo yaqaano warqadda, qalinka iyo telefoonka. waxyaabo badan oo markii hore kombiyuutaraadka lagu qaban jiray ayaa dib loogu noqday kadib markay xanimay aaladaha qaarkood ee dijitaalka. haddaba su-aashu waxay tahay, sidee uu Wayne Grey ugu faafay? jawaabta muhiimka waxay ku xiran tahay nuglaashaha loo yaqaano Interbrew. wuxuu ku faafay Windows. arrintan oo ka yaabay ka badan. Microsoft waxay hore u soo saartay update amni ah kuwaasoo lagu siixayo, laakiin dhibaatadu waxay ahayd update-ka wuxuuna shaqaynayay marka la rakibo. taasi waxay noqotay cashir weyn oo ay ka barteen cyber security-ga. mararka qaar uma baahno in ay sameeyaan wax mucjiso ah. cilmibaarayaashu raadraacan Wayne Grey intay dunidu isku danaysanaysay, taas oo fahantay weerarka, halka cilmibaarayaal amni ay bilaabeen in ay baaritaan ku sameeyaan malware-ka loo yaqaano MP3. waxay eegeen koodhka, waxayna eegeen siduu u faafay ilbiriqsiyo gudaheed uguna faafay dhammaan kombiyuutarada caalamka ee dijitaalka. waxay isku dayeen in ay fahmaan wax uu sameeyey marka uu kombiyuutaraadka ama kombiyuutarka uu galo. mid ka mid ah cilmibaarayaasha malware ayaa arkay wax aan caadi ahayn. Wayne Grey wuxuu isku dayay, cilmibaaruhu wuxuu samayn doonaa tallaabo muhiim ah. wuxuu diiwaangelin doonaa doominka, kadib wax la yaab leh ayaana ka dhici doona marka doominkiisa. maxay hakaradu qaar ay u rabaan in ay jebiyaan silsiladaha adag ee loo yaqaano Bitcoin? sababta Bitcoin loo doorbiday waxay ahayd in lacagaha dijitaalka ah ay ka duwan yihiin habka lacag bixinta caadiga ah. taas waa sababta khubarada amniga ay xoogga u saareen hal arrin. Wayne Grey wuxuu dunida tusay in cyber security-ga aysan ahayn wax ay keliya ay ka shaqeeyaan hackerska ama shirkadaha teknolojiyadda. isbedelada waxay u baahan yihiin bangiyada caalamka, waxay u baahan yihiin qaarkood in ay lahaadaan cyber security overtime and hacker. dowladuhu in badan waxay u baahan yihiin malaayiin cyber security. xitaa qofka gurigiisa joogo badankood waxay u baahan yihiin in ay fahmaan aas-aaska amniga. fiidiyowgeena maanta aan ku dulmaraynay dhacdadii Grey ee ransomware ee ka dhacday Russia. halkaas ayuuna fiidiyowgeena maanta inoogu ogyahay. waa anigoo Maxamed Xaaji.